السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفت له رج الدمربا وحرجينا إنad fiicantihiin ee nagala socda kanaalkan ogaansho. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago mowduuc runtii qaabkan u soo gudbinayna ka yara duwan qaababkii aan halkan muuqaalada ku samayn jirnay. Saacadda hadda daqiiqadan codkan aan duubayo mowduucan aan samaynayo waa 5:11 daqiiqo fajarka qorraxda weli ma soo bixin. Waxaan rabaa mowduucan runtii inaan wada gorfayno wada aragno. يعني حاجة أفكار أيان إسويدار سنين إن كستو أنا كل جي أنا هذلايا لكن وحنا ربنا كهذا الموضوع رنتي مهمة والجاي بعديها كقف يعني إن دريميس شرط ما معناه إن تكاركت هي كنال معينة بالموضوع أنا كهذا لنا يعني ما أنت عالم كسجود أهانات جارهان عالم كقلبات كآت كأوبضن موضوع معناه دي رجلنته يعني يوتيوب كوحكوجر هذا ملايين مقالات دي رجلنته اللغة كلا دوان يعني هذا ما أكتاي إن مقالات بدن دي رجلنته معناه دينعهن إليهين ولبقات أبضن قف كانوا قدرامي كرا معناه وان هو قف موضوع أنا تلاقي سنايا هبل إن قدرامي مال ما كمان دو سويدية معناه مقالات دي رجلنته بدن وأركايا يعني إني كجارسين مرحلات معناه قف قدام بدرامي معناه وليه هي يعني وحبا متيد عمله كله نفتيس إنه يصايا كله وحاجة الجملة كجرت فيلم مصري أو يعني رنتي موضوعا عن فيلم إنه كده بقى مساء الدواء فيه سم قاتل دواء داس معناه قفك وقاضنا عافمات كيسة يعني وحكب بدليسة يعني هذا وضع ركتين برستمول كصديقات قادت قنادة وكاكا عصامتها كوريرا دواء داس معناه الدراجس أي كسمة سنتاي haddii aad qadarka lagu talagalay ka badan aad qaadato yani waa geeri macna daawadaas aad ku daawoobayso waa isla socdaan yani daawadaas aad ku daawoobayso yani xadkeeda haddii aad dhaafiso yani waxa macquul inay ku disho shaklaan way ku dilaysaa bal xitaa qisooyin badan oo xajad paracetamolkaas caadiga yar haddii xad badan macna dhowr badan ay cunaan mid waxa la sheegayaa yani inkastoo kaftan ay u badiyaan daawo badan ayuu cunay wuxuu cunay macna kaniin badan وعندي محل هالمر كنين وعنتي سيدا معناه كورة ملاريا ذا كله وهالمر عني وعيرو حان ربا إنان عذر كهالمر كدس أنا قديقو سي ودقدق أقوبحو مركا دي داود إيه سيداس تهي يعني أرن كلا حرير دي رجالين تأرنتي قلبيات كمركان كهاد لينا وقناع سكور لسان يعني كإما دان لهنو بلايين لعقا نصيب حما أنك ما أنت يعني inta badan anaga markaan leen macnaha walaajada caalamka islaamka oo kale مثلا wadamada carabta anaga afrika soomaali macnaha dadka inta badan dhiirigelinta ka hadla siday ahaataba waxay saameyn ku yeesheen macnaha wadamada galbeedka oo xitaa laga yaabo waxyaabo anaga aan ugu dabaqmin aslan qofka inuu sheego aniga alxamdulillah naftayda ma amaanayo bilowga kanaalkan youtube-ka aan bilownay waxaan ku baraarugay arrinkaas haddii aad aragtay inta badan muuqaalada aan sameeyno kale laga yaabo dadka macna mesela hadii aan ka hadalno kala buug aan soo koobno ama shay muayana ani komantiyada runtii aan jecleen waxa kamid ah yani dhiirigeliyaha dhalinyarada Soomaaliyeed oo kale qofkaas tabcan qaab niyad wanaag uu leeyahay laakiin ani dhiirigeliye ma ihi ani mowduuc markaan sameeynayo arrinkaas ku aadan waxaan isku dayay intii aan wada macluumo inaan kula wadaago waxaad ogaanaysaa macnaha noloshan runtii waxyaabo ugu muhiimsan qof inuu macluumo ku sheego yani ila sawir hadda adigoo meel kulunsan oo kale qof hadii ku albaabka laga baxal kan way شيء وحاول معناها معلومة حكوسية بدبادة مركا يعني لرجلنت لكن هذا الكلية رنتي أنا الحمد لله وأنا سكيل على نفسي ده ما أمانة يكمل سدا صيانة هي لكن وحن اسكو ده مرة بين سكيل عليه سبب طاقة يعني مسؤولية ده ما قاعد كرتيت لأن يرى عرورة يكون جاي سنيسة يعني وحيابها رنتي جو كان عاد كان إن كل وذاقه حاجة أفكار تان عن صوب النجا معناه أركض ما أنت عيال يعني مركز قانقاري أنا ليش أقول بالله ولول سيدان كنا قضاء وحاس أيان ربعنا حقيقية كمان نكاس مقالة أركيان شرطنا ما أن معناه كمان نكاس تتصامالي إني كإيمانا يان بل حتى إنترنت كمان تو اسكو فريني وحكسو جاري كلب عربي وحكسو جاري كلب إنجليز أو يعني وحكو لي رجالنا كدي بنقف كنا ليش يسوي أي تاي دريميد الدم بمرول بقى معناه أديك قف طايلة متيد وحاس ماضن حقيقيين ما أنت نقف كأنه كجرة لصين وحاس مركا أنا شيء كلي هذا قدب كان كولا وذاك وإنت بني آدم تاي معناه إنت بني آدم تاي
inaadan ahayn yani malaag aadan ahayn jadwal haddii aad degsato shardi ayna ahayn 100% inaad ku socoto xilliyada qaar waad dabagedoomaysaa waad ka dhacaysaa caadi bini aadam ayaa tahay wahsi ayaa dareemaysaa haddii lacala aad go'aansatay oo kale halkan kuguma baaqay mar kale micnaha mobilka waan ognay shay fiican maanta inaad muuqaalada reelska aad u fiirsato kale haddii aad nidaam mucayan ku socoto inaad maalin saacadaad isku yiri ilowdo kale bini aadam ayaa tahay micnaha marka arrinkaas ku soo marto kale inaadan dareemin inaad yani qof xun tahay inaad sidaan tahay micnaha bini aadam ayaa tahay inaad micnaha bini aadam inaad tahay jumla haddii aad kala soo bixi karto xalaqadan waa inaad bini aadam tahay qodobadan يعني أن صارني مثلا كان أكله مركان كسر تجني منها الدواء صم قاتل يعني وحول بحد كود هدي دافان إني كدلي كران يعني دي رجلين تاز هدي أض مقالة كقضاوة معناه واحد جاري سام مرحلة قضب قانون إيماننا لبعض يعني أض ملايين يسمى مقال كاس دقيستي كل رجلي إن خلاص أضو حقيقي شيء يعني واحد دقيستي مقال مثلا يعني كل واحد جات الساعة صعناي واحد دقيستي صدق دقيقة دي رجلين مركز أما يستي أديكوا أنا وحبا أنا قبل واحد عنك قبل مالهن بشكل أنا معلومات وحيابها صعد مقاشي إما dhiirigelintaas saacado kadib waad iloobaysaa macnaha waxaad isku qancisay muuqaalkaas markaad dhammaysatay khalaas wax badan ayaad xaqiijisay laakiin waxaad xaqiijisay ma lahan shayga macnaha halkan aan ku qornay ee ah mal wado ya allah hal wadaan ka wada meeshaan xariisu waxaan macna meeshan hal wado okay hal wado ma jirto waxyaabaha runtii aan ku tilmaan waa nimco ilaahay macnaha hadda qodobkan hadda aan kula hadlaayo aan ka hadlaynay labada ah in macnaha hal wado ayna jirin noloshan waa nimcooyinka ilaahay bini aadamkan ugu talagalay adduunkan noloshan adduun haddii aad wax baranayso haddii aad shaqaysanayso haddii aad ganacsi samaynayso haddii aad cirka u buubayso ma jira macnaha hal wado la raaco qof walba wadada uu sameeyo معناه وضد أديك أتراعض أديكو وحي الجهد يا دوده وحي معناها معلومة معرفة أتكايسته هدي أتكون دقاقده والله إلهي وكوافة جناية معناها إلهي نلاشان الدون هل عد قعنت أمؤون قلينين مرده معناها هبل قاب قراء هذا راعين وحبمتهد معهن يعني فيري وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى adiga insha Allah dadaalka aad bixiso wadada aad samayso qaabka aad raacdo ilaahay uu ku waafajin macnaha ma jira noloshan hal qaab ciyaartoydaas kubadda cagta ciyaaris fiiriya 12 laacib oo garo macnaha 12 kaas laacib ee garoonka ku jira kubadda ciyaarayo yani halka fariiq ka soo jeeda mid walba qaab gooni ayuu leeyahay yani hadda fiiri رونالدينهو iyo maxay زينادين زيدان isma shabahan يعني weeraryahan hebel يعني mid walba qaabkiisa goonida ayuu leeyahay يعني لاعب كان مثلا رونالدينهو kale waa mahari macnaha skillska qaabku sameeyay gamebiska baasaska زيدان waana qanaasado kale laakiin mid walba style gooni ayuu leeyahay macnaha ma ahan رونالدينهو hadii aad raacin qaabku uu زيدان sameeyay waxba ma teed macnaha ma ahan macnaha madaas midda ugu muhiimsan adiga qaabka aad insha Allah aad raacayso waa qaabka saxda macnaha waa qaabka saxda waxa jira kuwa ku magacaabaan Greek hore ay dhigi jireen safistaayin mar ayaan ka yar soo yar hadal qaadnay oo ah macnaha ku leeyihiin insaanka waa qiyaaska xaqiiqada yani haddii uu ku dhaho mid uu dhaho kala tusaale ahaan dagaalka faa'iido leeyahay wuxuu kale wuu saxsan yahay haddii mid uu ku dhaho yani nabad iyo dagaal la'aanta faa'iido leedahay wuu saxsan yahay maadaama insaanku yahay aslan ay ku leeyihiin waxa looga qiyaas qaadanaya xaqiiqada laakiin halkan waxaan ula jeednaa macnaha adiga insha Allah qaabka aad raacayso howlahan adduunaad qabanayso qaabka aad wax u akhrisanayso yani adiga nidaamkaada ku gaarka waa mid sax ah yani hadda arkida qof مثلا imtixaan galayo kala dhaano dhalinyaro imtixaan diyaarinayo mid walba qaab gooni u leeyahay mid waxa jira macna sir yar isticmaalo maalintii laga yaabo intaas daqiiqo inuu akhriisi yar qaab ah mid laga yaabo mid walba goonidiisa ayuu leeyahay macnaha qof walba wadadiisa goonida ayuu leeyahay runtii waa nimco ilaahay waa nimco weyn macnaha hadii ahaan leed ka waran hal qaab oo la raaco ilaahay
nidaamkan micnaha sunankiisaas kawniga uu u sameeyey kadibna qof walba waxyaabaha hoose la xiriiro yani qaabkaad u soconaysa shardi maan hebel inaad ku dayato يعني هذا آلة wax kastaan isticmaalin microphone-kan yani computer-kan barnaamijyadan waxaan oo dhan aan isticmaalayno micnaha waxay ahayd waddo markii ugu horreysay qof uu bilaabay isku dayay marka sidoo kale waa muhiim inaad ogaato yani qaabka adiga aad raacaysa ka shakhsi ahaan wadadaada adiga ku gaara micnaha inay sax tahay in aadan dhihin micnaha qof hebel ayaa iga fiican qof hebel ayaa iga caqli badan asagaan 100% ku dayan wadada adi aad jeexato runtii natiijo ayaad ku gaari marka la xusuusto micnaha sheegan inuu yahay nimco ilaahi xagiisa nooga imaaday in aysan jirin noloshan cid gooni ma lahan bal xataa watii aan marka hadalnay micnaha wadamada caalamka markaad u fiirsato يعني ما جرى ودن بقول جحيمة يا ودن بقول جنة صومالي كل شيء أوقف عند الدنمارك ياجرى صومالي كل شيء أوقف عند السويدن ياجرى السويدن كل شيء صومالي أوقف عند ياجرى مد والبو إلهي معناها ما أبورن أمد إني عذاب كنا ولا تولجت ومن الجنة كنا ولا تأدون كان أمد والبا إني عذاب ونكسن أي لا ذاي أمد والبا يعني دل كذا شيء جس ونكسن أي ليه معناها مجرى مركلة ودن بقول نار يودن بقول جنة ميداس معناها رنتي مركاد كبر رقت قدب كان حوجات دجنان أيو كسينا يا أركيد ضد 10 سنة كور 20 سنة كور مريكا كجوري أو أركي شيء وقصر رأي لكن ما أنت كتها ما إنك سو جوران كيد الكجوجان أو مريكان هذا معناها ميداس رنتي يعني وشيء مهم كو إني نسنجرن هل وضع أو يعني ضد كرن أي وضع مرايان أو سي معناه رنتي الدجنان أيات دريميسا يعني مركز هذا الشيء كان وقعت هذا دجنان أيات دريميسا نظامك أتراعيسا وح أديك أتصمينيسا هذه قاب معين أديك أتراعضه والله كصع هكلا بالله وينين معناه مالك لها آذن يعني هذه قاب معناه وآخر ستوك لا أي معناه دورت الشيء مراد الله معناه مراد الله تكنا وكون نقضي نتيجة في عنات كجارتي كصع wadada macna qaabkaas adiga aad raacaysaa saxsan ganacsiga haduu nooc muayyan yahay ha kala balabeen sidiisa ugu soco shay waxa weeruntii yani marka u fiirsato ajiiba midda kale en qodobkan saddexaad aan niri go'aankaada waa sax ayad quraan waxa jirta ilaahay uu leeyahay yani fa idha azamta fatawakkal ala allah hadii aad go'aan qaadato istikhaaraysa marka koobaad إلهي تلا سارو هكلا والله بين قوانكاس ku soco maanta waxa laga yaabaa micnaha badnida muuqaalada dhiirigelinta ah yani qofka inuu isu maleeyo inuu yahay bini aadan micnaha haafa inuu go'aan qaadan karin in uu ay shardi tahay micnaha hebel inuu ku dhaco go'aankaas qaado in hebel uu kula taliyo in marab lagula taliyo waxyaabaha kale ee aniga ka macluum ahaan hadii aan kugu soo kordhinayo waa معناه أديك قوان كات قادت إلهه ما دقيقة سدو أركت إنه قلتين قوان كات صحسن ما أنت خبير كأجو خبير سن إنك أجو يعني بدايرتي الديارة إيكو سودي كران خبرد هدي أضمان تلاك ولا أنت نلاش هذا أديك كيقان ظروف هذا أديك كيقان حالة هذا أديك كيقان نظام كذا أود هذا نقال هذا نلاش هذا سدايت هاي نفط هذا أديك كيقان تاسو قوان كأديك أتقاضني ساك صحسن halkan kama hadlayno macna shay caam ah oo madadan la rabo inay ka wada shirto yani shay la rabo in laga wada hadlo yani qof walba uu ra'yigiisa ka dhiibanaya ma aan oo aara meel dhaxal isku keenayo ee waa adiga ka hebel iyo heblaaya yani shayga noloshaada la xiriiro cid kaaga aqoon badan ma lahan go'aan ka saxsan ma lahan go'aanka aad qaadanayso qiyaas kartaa macnaha go'aanka aad qaadanayso إلهو ما دسو أركتد معناه إنها طاهي مرمر وأبيه بعد ذلك كلمة حلو يجري موف معناه قف مركو لي موف يو معناه إلهو ما أديك إسو أركتد أنا أضاطه كمله معناه أديك إلهو ما دسو أركتد معناه إنها موف تهي معناه موف على جوده قف يعني لقروني إنها إسو أركتد معناه أسكر رادع سوق إلهو ما دسو أركتد قوانك أديك أتقاضنا يسو أيها كسا حسن متك أقصينا يو خبير كاس عن شاقني بدارت معناها يعني يا سلامت قرون خبرات سق نمبو معناها حكمت أي كصعتها وحط كفائدة كماله
tashigana micnaha ma fiicna kuma lihi ee waxaan ku leeyahay go-aanka adiga aad qaadanaysa ka shaqsi ahaan naftaada markaad fiirisay awoodahaada markaad fiirisay duruufaada markaad fiirisay ayaa ka saxsan kun naseexa ama kun go-aan oo qof kale ku siinayo makaasina haddii aan u hadalna sida reexmar waxaan rajeynaya macna inaad kastay inaad fahantay shaygaas runtii waa shay muhiim ah inta badan waxyaabaha keena micnaha qofka inuu aad u daawado ama muuqaalada dhiirigelinta ah waa in micnaha uu rabo qof yani ama go-aan ayaan rabaa in layla taliyo ama sidaan ayaan rabaa inaan sameeyo ama maxaase micnaha markuu qofkaas muuqaaladaas badan uu aad u daawado dhinaca waxaa ka mid ah micnaha inuuna go-aan qaadan karin inuu rabo in lala taliyo micnaha macluumo in lagu soo kordhiyo in lala taliyo in la dhaho waxaa samee laakiin arrinka cajiibka mar kale go-aanka asaga uu qaadanayo ayaa sax noqon doona yani hadda adiga qof muslim ah tahay haddaad tukato يعني استخاريسته إلهي أتلا صارته فإذا عزمت فتوكل على الله قف كلنا هويدين شكل آن وي يعني وكوها كاكايان سيدو كلا يعني هذا ما أنت ديان رهنا مقالة قضب كان أفردان وإيمانو كلا مقالة سمعناها يعني هذه لعل داوانيسو وحادر هذه سمعناها مقال معلومة كوكسو كرديناي shay kaa qarsoona kugu soo kordhinayo yani wax kaa yar qarsoona kuu bidhaaminayo laakiin muuqaalada ma taqaana keliya kalaam mursal ay dhaano kale hadal micnaha macluumo aadan ka micnaha ku dhiirigelin kaliya yani runtii waxa ka fiican shay macluumo kugu soo kordhinayo shan cayrinta micnaha waxyaabaha ka dhaxlaysa waxa kamid ah cayrinta يعني سيدي wax aan la gaarinin oo kamid dhaan daban galay inaad cayrinayso kale qofku wax walba uu qabanayo uu yasayo macnaha mar walba aad leedahay yani sidaad u qabatay si la ka fiican ayaa la rabaa inaad u qabato maxay ahayd macnaha sidan oo aadan daalinin macnaha aadan daalin halka waxa la jeedaa yani qofku uu ku qancayn wax uu qabanayo xaalad macnaha saluugitaan macnaha joogtay mar walba aad ku jirto mar walba aad ooman tahay mar walba aad macnaha aad ku taamaysa shay aan la arago ah macnaha sidaas aan noqonaya cayrinta macnaha dhaan daban gaarle noloshaan adduunna fiiri sida xitaa xadiid waxaan u malaynaya aslan xadiid rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam yani noloshaan qofkii isku adkeeya maxaangag yani sidoo u soo dhicinayo hamiga sidoo noloshaan tahay nolosha kugu adkaani halkan marka waxaad ogaataa yani inaadan dhihin la khalaas hadaba sidaas la yiri mobilkan iska isticmaal maanta oo dhan yani waxba ma sameeynayo rasuulka wuxuu ka magan gali jiray ilaahay caajiska maxayda caajiska ugu yani rasuulka ma jirto maalin ilaahay caajis iyo kasal iyo macnaha wahsi uu ilaahay ka magan gali jiray macnaha inaadan wahsanin يعني شيء ugu muhiimsan kale aad sameyn karto yani wixii aad awoodo inaad sameyso mar kale yani aad ogaato waqtiga macna in lagu la xisaabtamayo wax ugu horeeyo macnaha dhalinyaranimada xageed ku bixiso maanta waqtigaada hadii aad si dhab u nooshahay macna noloshan aad dhab u qaadato wallahi video dhiirigelin uma baahnaanaysid macna si dhab hadii aad u nooshahay يعني واتقانا ما انت هدي اطريلس كاس داوانيسو مقالدس قصلka aad daawanayso macna shay fiican inuu ahayn uma baahnid macna qof inuu ku dhaho iska daa macna uu qof hada muuqaal ku sameeyo ku dhaho waxaan ka hadlaynaa xumaanta muuqaalada degdega reelska instagramka tiktok facebooka macna midas adaaba og waqtigaadii مش عارف ايش يعني markale yani حتى مر waxaa jirtay podcast aan sameeyay fanaal podcast oo ah bal xitaa kutubta aan akhrino kale kutubta aan akhrino maanta yani waxa lagu taliyaa waxaan ku magacaabi karno kutubta ummahat al-kutub macnaha kutubta asalka oo ah macnaha ayaga cilmiga dhabta ah ee inta awood sidoo kale iska ilaaliso kutubta ganacsiga yani inta badan galbeedka ay qoreen ee ganacsi ah
mar kale micnaha dhiirigelinta inuu qofku shay kugu dhiirigeliyo ku xusuusiyo shay xun ma ahan laakiin natiijooyinka yani adiga qaabkaad ula tacaamulayso yani keliya un aad daawanayso wax camal aadan samaynaynin ayaa mushkiladda ah iyo inaad aslan muddo markaad micnaha macluumaadka dhiirigelinaha ku saabsan markaad ogaato yani waxyaaba badan macluumaad badan haddaad hesho yani muddo ku soco muddo micnaha muddo jooji ah haddii aad kitaab akhrisanayso kale ama film documentary aad daawanayso kale ha يعني منها مدة يعني أنتي وحجر معناه waxaan dhihi karnaa sida maaragtay daac qurun oo kale tukhma xarabiga dhahan micnaha waxaad gaaraysaa xaalad daac qurun macluumaad badan ah waxaan idhi kow addawaau fiihi sumun qaatil haddii aad wax walba ay xadkooda dhaafaan xitaa waxay dhahaan lidkooda ayay noqdaan in sha allahu tacaala yani hal wado noloshan aysan jirin oo yani cid walba ay raacayso adiga insha allah qaabka aad raacdo nidaamka aad isticmaalayso nolosha qaabka aad u aragto insha allah inay sax tahay oo yani natiijana aad ku gaarayso iyo go-aankaada wax ka saxsan ma lahan micnaha go-aanka adiga aad qaadanayso insha allah uu ka saxsan yahay micnaha tala uu qof kale ku siiyo haddii aad wax rabto inaad maalan isbedesho kale waxaan la jeedaa yani ama aad go-aan qaato ama aad waddan kale u socoto ama aad meel kale u socoto yani shayga markaas adiga la dhihi karo waad u baahantay keliya waa macluumo ah waddankaasaan tegaya waa sidee iyo maxay ahayde inaad soo baarto iyo waddada aan sii marayo kale waa sideen ku tegi karaa laakiin go-aanka inaad qaado asla inaad tegayso cidda keliya ee qusaysa waa adiga cidda keliya micnaha ogna waa adiga cidda keliya micnaha ugu cilmi badanna waa adiga ka bini aadamahan markaan ka hadlayno micnaha go-aankaad insha allah waa midka ugu saxsan muhiimaddu waa macluumo aad helaysa haddii aad lacalla muuqaalo noocaas oo kale aad daawanayso yani shay wax kugu soo kordhinayo iyo inaad micnaha arkayso in yani qofka uu isu malaynayo maanta inuu wax cayrinayo kale cayrinta yani wax uuna gaaraynin uuna mar walba qanaaco uuna helaynin adduun uu cayrinayo marka midaas waa midaas noloshan yani ilaahay uguma talagelin cadaabkaas yani qofku inuu isgeliyo wixii aad awoodda insha allah samee dadaal adiga ha la harin يعني si dabiici u noolow insha allah waxaan huba inaad dareemi doonto xaalad micnaha deganaan ah cumar inshaar laa ilaha illa allah asalaamu calaykum